dhaqankaagana kuma haboona hadaad ku dhahdo shaki male waa xishoonaysa shaki male hay soo martay maalin dhawey gabadh kamida gabdhahaas saaran bikibikidaasi ama mootada saaran oo nin ajnabi u wado ayaa isoo dhaaftay anoo jidka haya waxaan aad u tamaniyay inaan gaaro saa ilaahay amarkii meelaan iga fogeyn bay kaga degtay waan soo gaadhay soo leexatay waan la soo leexday waxaan ku yidhi walaalle ninkan ajnabiga iyo meeshan aad saaran tahay ma kula fiican tahay maya baad maxaa ku saaray dan baa iga fakanaysay sheekh hawl baa iga fakanayso waan degdegay laakiin waan khaldamay u noqon maayo istaxiyad inay ooyday ku dhawaatay واساس لان ايمانك قلبيgeeda ku jira keenaya قبوليد الله ينسيه في غزوه تبوك markii la baxayay waa mar adag bay haydo xaalad adag ay asxaabta la soo wajahday dhaqaale xumi kulayl abaar absi markaa buu nabigu waan baxaynaa ila Tabuk nin hari kara ma jira maanta waliba nabigu wuxuu ku dhiiriyay saxaabadiisa in maanta nin walba bal wuxuu bixin karo diinta ku nafaqayo diinta ku bixiyo nin rajul Ulbah ibn Zayd radiyallahu anhu aya habeenkii buu salaatu leelka u kacay ahla sufuuka midaha ilaahayow waxaadna amartay inaan baxno oo qaswada nabigaaga aan raacno oo jihaadka u baxna ayaadna amartay waxa kale nabigaagu nagu dhiirigeliyay inaan dhaqaalahayaga diinta ku bixino yaa rabbi anigu waxaan maanta aan ciidanka ku raacana ma haysto waxaan diintaada ku darsado oo dhaqaalaana iima siinin adigu nabigaaga Muhammadana maanta wuxuu nagu qaado isaguna ma hayste yaa rabbi anu waxa sadaqadaysanaya maanta aan ku sheegay qof wali qofkii cirdigayga meel kaga dhacay ama xoolaha leeyahay iga dhacay ama aniga ay xantay ama aniga ay caayay ama xaqayga ku xadgudbay ilaahu dartaabaan u cafiyay ilaahu arimahaas ayaa sadaqadayste sadaqada la aqbal ilaahu igu darbu yiri sadaqada la aqbalay xuu sadaqadaysanaya qof ali qofkii cirdigayga meel kaga dhacay ama uu caayay ama uu xantay ama uu dhibaateeyay ama xoolahan lahaabuu iga dhacay anoo aan war ka haynin ama dabadeedu wax ku sheegay ilaahu dartaa baan u cafiyay waxa ma yaraatay argoosiya inaad iga argudo kama rabiye dartaa baan u cafiyay ilaahu cafiskaas sadaqada la aqbalay igu darbu yiri maanta habeenkii sidaa buu ku ducaysanayay waagi markuu bariyay buu rasuulku sallallahu alayhi wasallam salaadii subax markuu tujiyay buu nabigu sarakacay markaasuu nabigu ayna almutasaddiq albarihata warnigi xalayt wala sadaqadaystay me sadaqadaystay xalayt wala sadaqada la baxay me markaasaan xagga eegay buu xagga nimo waa kici waayay anigiina waan yaabanahay waa fororsaday warnikaasi kula waa kuma markaa buu nabigu ku celiyay war sadaqadaystay xalayt wala sadaqada la baxay kume markaasaan xagga eegay nina ma kicin xagga nina ma kicin xagga nina ma kicin markaasuu haddana ku celiyay markaasaan ayaan isaga nabi tolow arintaadii baa nabiga loo sheegay markaa baan iska sarakacay buu markaasaan way ka rasuulallah markaa buu sadaqadii xalay alla baxday saxaabada u sheeg buu kay qisadii buu ka waramay iyo ducadii xalay tolow wuxuu ku ducaystay markaa buu nabigu ku yiri bashaarayso dadka zakada bixiye ee muuminiinta ee zakadooda laga aqbalay ayaa xalay adigana sadaqadaada lagu daro waa laga aqbalay rasuulku ka yiri niyad wanaagsan niyadoodii bay diinta ku bixiyeen iska daa wax kale inaga maanta diin markii la hadal qaado Soomaalidu diinta waxa uu taqaanaa uu tukan waxa la soo wariyay nin yar oo dhalinyaro oo saxaabiya oo laga yaabaa in ka yar ag fadhiyo inuu leegiyo koraya أي النبي أيوحري كنت أبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم أيان أكسى حنشر يبويري فآتيه بوضوء ويسده مركو نبي ويسدوني أسو قادي شري ويسده نبي نبوها من كريم وهانشري صلى الله عليه وسلم قفك معروف كأسمية وحوش عليه وأبال قدو يركي وحكيري سل ما شئت يويدي وحياد كان دونسي قال سل ما بذلك وحياد دونتي ويدي
ونيد من يراه وأن قرسن وأن حول لهين وأن علم لهين وأن عرور لهين يركب يا رسول الله صدق شيء بالإسي أن كسر فكر المسألة دي وصول نقضي يركي قال يا رسول الله محيرك أصلا ما نسي نبقى ويديسي وحول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألك مرافقتك في الجنة إن جنة صاحبنا أيام دون يا رسول الله وفر سيرك سبحان الله قبل إيقوري مو أرنين حول عنك محرا مو أرنين وحول يا رسول الله أسألك وحنك ويدي سنية إن الجنة أين صاحبك النقطة مرافقتك في الجنة إن الجنة يذكر عنه وجنة هو بقول درجة دوت والله لك لا بيريا ونبى هالك أو بيريا نبى هالك أو بيريا نبى الفردوس الأعلى لجينيا نبى درك كسو قليا نبى عذابك كسو بحيا صبو وعبت كسو على وحول يا رسول الله جنة أنكو أكفر اسم إن صاحب كرون نقضة جنة أن شار كرون نقضة أيان دوني قال أو غير ذلك أنت ويحكي لمية دونيسا يعني حول ما دونيسا أدونك ما دوني وحكي أدون مرة وحن لقوه النبي كيري صلى الله عليه وسلم ويقول أنت ويديسون كان يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم تا ويديسون وحول يا رسول الله عيدي إيمي صوت المامنة تاسم كويديسانيا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن فأعني على نفسك بكثرة السجود وانكود عين إله وانكود دين إياه يولد داد إن السجود أبد السد إن السجود أبد السد مركز وحوري كما دام دوم أركيسا ماذا جوا كتر من سنة يا نبي جاء أترد مركز وحي كتر يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي يا رسول الله رسولك إله السوحدين بان ليهي عوري دونوي موقتا مركا عن سوحه إلهي إيبري ربي سبحانه وتعالى هاي مركا هاي عافية نبي حكور عليه الصلاة والسلام إن شئت صبرت ولك الجنة أما واتكو صبري حنونك أو جنة ليدا هاي أما إلهي بان كوبري وخيار قال يا رسولك عليه الصلاة والسلام مركو نبي جنة سوق هذي أيوه هذا حنونك كو صبرت جنة ليدا هاي waxay tiri waa ku sabraya xanuunka laakiin rasuulka ilaahay waxaad ii baridaa inaanay cawradeedu muuqanin marka aan suuxo fadaa laha uu duceeyay nabigu calayhi salaatu wasalaam marka ay suuxdo cawradeedu maanay muuqan jirin imisa maanta gabar muslimada u qastiyaysa inay cawradeeda muujiso oo ragga ajnabiga hortooda ay ku hormarto shirkeedu qaawan ama maryo khafiifa ama waxyaabo dhajisa ama qayb jirkeeda marka waxa weeye nin dhalinyaro wuxuu ii sheegay gabdho waxaa jira inta badan guryaha hortooda jidadka caamka la marayo guryaha hortooda soo fadhiista oo meelaha iskaga sheekaystaa jira wadooyinka caamka la marayo ragiiba inay fadhiistaan oo nabigu ka dayriyay sallallahu alayhi wasallam ila shuruud mooye ba iska soo fadhiisanay iskaga sheekaysanay gabdho meesha fadhiya ayuu soo maray nin dhalinyaro markaas wuxuu ku yiri walaalayaal meeshani meel munaasib idina ma aha meeshii gabadh muslimada fadhiisan lahayd ma aha jid weeye guriga gala gabadh gabdhihii ka mid ah u soo baxday طبعا oo xogaa quraanka inay ka taqaanay waxna ka fahansanay markaas waxay ku tiri qowmkii huud nabi huud qowmkiisi hadalkii ay nabi huud ku yiraahdeen oo aha ama nawacdi ama hanna wacdiina waa isuu kaana mid waxba ka yeelin adeer haysdaalin meeshan waa fadhiyay wadaadkii inta buu awoodiisa ahayda waa iska dhaafay waa isaga gabadhii afka inta waa ka tiri laakiin kelimadii qalbigeeda u gudubtay meeshii kama kicin ilaa ay qooma mootay maalma kadibna madrasadii iyo darsigii iyo quraankii bay soo xaadirtay hawshii iyada ahaydna aad bay uga qooma mootay walu fiirsi dadkani dad xumaan doona uma badna laakiin badankood ama shaytaan iyo naf ama jahli baa haya maxaa diiday markay ku soo martay gabadha muslimadda ninka ku dhagan inaad tiraahdo wallahi la ilaahay ka xishood istahyi min allah ilaahay ka xishood inaad tiraahdo maxaa diiday وابدا لما جاء الموت لبلال بكت ابنته أو زوجته قالت وحزناه قال لها لا تقولي وحزناه
بل قولي وفرحاه غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. وبإذن الله غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه.